2004 guud ahaan geeska Afrika waxa ka jirta cabsi la xiriirta argagaxiso waxaana bilaabatay beegsiga culimada Soomaaliyeed iyada oo loo gelinayo shaati argagaxiso si loo gumaado haddaba arrintan way soo maleegeen reer galbeedku ayaa culimo badan oo Soomaaliyeed lagu beegsaday halkani waa Somaliland waxaana ka dhacaya fal argagax leh kaas oo lagu beegsanayo Sheekh Maxamed Ismaaciil waxa lagu soo xiray mid kamid ah xabsiyada Hargeysa si su'aalo loo weydiiyo asayeeshee arrintu su'aalo oo kaliya kuma koobno waxuna la kulmaya caqab bini aadam midkii ugu xumayd koronto ay ku dhajinayaan madaxa iyo gacmaha ay kaga istaagayaan way ciqaabayaan waxayna doonayaan inay ka soo saaraan hadalla iyagu ay doonayaan kaas oo been abuur ah si maxkamad been ah loo saaro kadibna lagu xukumo xukun adag haddaba bal marka hore aynu isla daawano muuqaalkan argagaxa leh ee baraha bulshada ku baahay kaas oo muujinaya sidii loo galay sheekha ولكن العالم يعني ما مش قالوا ما قاسي ولادته كل شيء ماشي ولادته استفاد ولا شيء سنة ماشي ولا شيء وين هذا واحد ولا زوجته وعلى وصحة أنا محمد سكوينس ما أنا محمد ده ما رد على قصة هذا حبل الله أنا إيش هذا حبل الله سير هذا طيب حال على جدي ورا حال على جدي كله ولاد ما على جدي لا وضع صار هذا عامل حسابي هذا حسابات بالحسابات عامل حسابي أنا بركات هذا وقت ما سوق حتى حسوق قوي لا تدرك بركات حقوق أنا حسابي أنا بركات صوتي ما أمريكا كل عام سنة كي العقد المسيسة أنا ما يعرف يمكن كل اتحاد كورش شخص ما يعرف شيء ما نقدر هون العالم وتذكر حد جانا وحنو بيعتقوا عدو كلمة هي يرجع حسده يرجع حسده ليش سمعنا ما جاني إني ما هذا إيش كشخ يستانه إنه بس كانوا دين تقول شركة زلمة تقول هاي شركة اسمها كذا زلمة تلاقي شيء جيسة تلاقاتين أنا وايد وقنا بابا يسكبنت أصلا أنت أول ما هاي يمكن بيسن شفته ما المفاتيح اللي كنت عامل إذا صاحب أنت عني صاحب ده وحصل سراد واحد أنا رجعت هقصد الله كله معانا قصده بعد كورن هذه واحدة يتاكلين تاد الشيء دونتا هذه هو واحد من هذا كوتا أنا قلت له نفع ده واحد يجرين بس كان يودين سلاح وطواقان وحنا عليه وحنا وياني ليس يعني مش هذا وده واحد عدينا يسمونه كان الموقع له وهي محاضرة دي أذكر قسم مساجد حديد الشيخ مصطفى محاكم كل فينا مريكا بروح كشك ثم وحي لا كشك وحنا ما كشك أنت لا كشك وما كشك سيدي أردت صاحبي Somaliland إثيوبيا أنا ما كان سوينا حقدر له وحقول له سنة إثيوبيا أنا وقال إلهي وأنا سبحانه وتعالى قال بشيء قالوا بمشي تفسير كلام حد إثيوبيا كمر والله سعد حتى ولاد عالية إلهي ما صار على المسجد وأحماله قاتل الذين يرونكم من الكفار ولا يجد فيكم غلظة والشاك حنقول شيء دين تقول شيء هذا يسأل وحدي أصلتها أنا دين إلهي كل حماية ماشي مرة هو أقول لي لا خلاص وضح البيئة هذول البيئة هذا النوبي هو ماشي لا أنا هم ولا لا حدا كسر أنا هدية كلمة كنور هذا يكون تمام هذا يكون تمام ده سارس لكن أنا محمد ويا هذا كبعدي وإنه قنا يا ورئيس وحبين بيسك بدلين حبين بيسك بدل دونا كيف شيء هاي شيء صاروا يقدر يكون ugu dambeyn maanta shiiqan waa mid kamid ah shiiqyada ugu caansan magaalada Hargeysa iyo guud ahaan geyiga Soomaalida waana shiiq caalima oo ay dad badan kitaabada ka akhristaan
isagoona ah sheekh akhriya tafsiirka quraanka kariimka ah bal aynu isla daawano kilib kamid ah cashiradiisa annaga iskale baa ilaahay yidhi lal aakhira ta dambe oo aakhira ah iyo wal uula iyo tan horaysa labadaba ana iskale maxaad u dayici aakhiro adduunyadana aad isu siin labada daaroodba anigaa leh saasuu ilaahay leeyahy wa inna lanaa annaga iska leh lal aakhira ta dambana annaga iska leh wal uulaa tan horraysay aad adigu isa siisay anigaa leh inaad ku kaaftoomaysa aad moodayna adigu melihiida ammaanay kugu tahay fa andartukum dhegihiinna fura waan idiin digayaaye dhegihiinna fura baa ilaahay leeyahay fa andartukum insaan yahow waan idiin digayaa naaran naar baan idinka digayaa naarta oo taladaa ololaysa naarta ololaysa laa yaslaahaa ma geli doono ilaa mooyaane al ashqaa mid ayaan daran unbaa geli doona nin nasiib daran haddaba daawadayaal waxaynu leenahay dhibkii aad soo martay runtii waxaad la kulantay ciqaab bini'aadanimo shiiqan waxaa la xiray sanadkii 2004 waxaana xabsiga laga soo daayay sanadkii 2010 intaa waxa uu ku jiray xabsiga waxa uuna la kulmayay ciqaabkan iyo jirdilkan haddaba waxaan leenahay dadku waa inay ka dhiidhiyaan in culimadooda sidaan oo kale loo galo maadaama wax been abuur ah lagu xiranayo kadibna sidaan loo jirdilayo halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii aan ka diyaariyey inta aan muuqaalkiisa kala kulmayno waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo naarta ololaysa laa yaslaahaa ma geli doono ilaa mooyaane al ashqaa mid ayaan daran unbaa geli doona